agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya oo maalmahan booqasho ku joogay dalka Britain ayaa kulan la qaatay wasiirka socdaalka ee dalkaasi ayagoo ka wada hadlay baasaboorka Soomaaliga iyo iskaashi dhinaca socdaalka oo dhexmara labada dawladood. Umar Xasan Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Korneel Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo maalmahan ku sugnaa dalka Britain ayaa kulan la qaatay wasiirka socdaalka ee UK waxaana ay ka wada hadleen arrimo la xiriira baasaboorka Soomaaliya iyo iskaashi dhinaca socdaalka oo dhex maraya labada dal. wasiirka socdaalka UK ayaa sheegay inay sii wadi doonaan isla markaana xoojin doonaan xiriirka dhinaca socdaalka ee ka dhaxeeya UK iyo Soomaaliya iyo inay waliba gacan ka geysanayaan hanaanka aqoonsiga loogu raadinayo baasaboorka Soomaaliya. agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa sidoo kale booqday xarunta laga bixiyo baasaboorka Ingiriiska iyo waliba xarunta hubinta dukumentiyada baasaboorada ee UK. sidoo kale agaasimaha ayaa la kulmay khubarada gacanta ku haysa baasaboorka Soomaaliya isaga oo ka qaatay warbixin ku saabsan hanaanka aqoonsiga loogu raadinayo baasaboorka Soomaaliya. Britain ayaa ka mid ah dawladaha sida weyn u taageera dawladda Soomaaliya iyadoo dhawaan ay ahayd markii saraakiil ka tirsan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ee Soomaaliya ay tababar aqoon kororsi u aadeen waddanka Ingiriiska iyagoo si gaar ah tababar ugu soo qaatay garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka London iyo Manchester. Umar Xasan Cali, TV-ga qaranka Soomaaliya, Muqdisho.